Waxaa laga yaabaa dunidan intaad ku nooshahay in dulka maqalkaagu ay soo gaaraan warar la xiriira qof xanuunsan oo qoyskiisa ama qaraabadiisa ay dayaceen ama aan la caawin ama aan garab qabasho loo muujin. Laakiinse qofkaasi markuu geeriyoodo, durba dadkaasi qaraabada ay la soo shirtagaan ama gurigaas ay keenaan tacsidu ay taale xilligaasi xoolo badan si loogu qalo qofkaasi geeriyooday. Laakiinse ka hor dadaal ma sameeyaan oo qof waliba waa uu ka jiiftaa. Dhacdo arrintaasi ku saabsan ayaan halkan kugula wadaagayaa. Waxaa jirta hooyo hal wiil oo kaliya ka haysata dunida. Waa hore ayuu saygeeda hooyadan geeriyooday. Wiilka waxa uu qabaa ama uu guursaday haweeney. Isaga waxa uu ahaa qof wax baranaya wiilka. Laakiinse markii waxbarashadu u dhameeyay, waxaa waqti badan uu ku bixiyay sida uu ku heli lahaa shaqo. Laakiinse waa uu waayay cid ku caawisa ama meel uu ka shaqeeyo. Markii dambe waxa uu go'aansaday inuu wiilkan uu tahriibo. Hooyadiisa ayuu la wadaagay fariinta la xiriirta tahriibka, iyadana waa ay ka ogolaatay maadaama nolol ciriiri ah ay ku jireen xilligaasi. Safarkiisii tahriibku galay intuu sii socday, waxaa gacanta ku dhigeen kooxaha magafayaasha. Hooyadii ayaa lala soo xiriiray, waxaana lagu yiri, waxaan u baahannahay lacag gaaraysa $10,000 inaad soo dhiibtid si lagugu badbaadiyo wiilkaaga. Hooyadii meel ay wax ka keentay ayay weysay. Markii dambe waxay u tagtay saygeedii ama ninkeedii geeriyooday, haweeney la dhalatay oo xilligaas maalqabeen ahayd ama lacag badan ama hanti haysatay. Waxay la wadaagtay arrintii, inkastoo hore intuusan geeriyoon haweeneydan saygeeda in ay qaraabadiisa ama ehelkiisa qaar ay ku dayaceen iyada midowga uu la sameeyay xagga nolosha hooyadan. Waxaa hooyadii ay u dan sheegatay haweeneydii oo waqti badan ay ku bixisay sida xoolo ay kaga raadin lahayd maadaama wiilkeedii xilligaasi u baahnaa badbaadin badan. Laakiinse hooyadii sida waqti badan ay ugu bixinaysa oo ay u baryaysa haweeneydii kale, waqtiga ayaa ka dhammaaday oo sidii ayay kaga aamustay. Qofkay u tagtana waa wiilka eedadiis oo waxay ka soo weysay. Waxaa soo waca markii dambe kooxihii magafayaasha. Waxay u soo duubeen fiideo gacan midig ay ka jarayaan wiilkeeda, iyadoo ooynaysa islamarkaana aad u qaylinaysa hooyadii oo badbaadiye leh wiilkayga ayaa sidii wiilkii gacanta loogu jaray. Mar kale ayaa hooyadii lagu yiri, haddii aad keeni weyso lacagtan kaaga baahannahay, inta kale ee jirkiisa waan jarjari doonaa. Hooyadii waa ay qaracantay iyadoo ilmeynaysa. Waxay u tagtay dadkii shalay ay wax ka soo weysay, sidii oo kale waxba kuuma hayn ayay soo yiraahdeen, iyo sidoo kale waqtiga yuusan kaa dhammaan. Markii hooyadii lacagta ay bixin weysay, mar kale waxaa xubin loo sii jaray xubnaha jirka wiilkeedii. Ugu dambeyn wiilkii sidaas ayuu ku dhintay. Laakiin markii ehelka wiilka ay maqleen in wiilkii yaraa uu geeriyooday islamarkaana gacanta magafayaashu ku baxay, waxaa guriga ay keeneen xoolo badan oo geel u badnaa. Hooyadii markii ay aragtay waa ay xanaaqday, waxaana ay tiri, gurigayga iga baxa oo walba wiilkayga dhimashadiisa la kasakow, sababtiisa idinka lahaa oo aad dayacdeen. Dadkii waxay sameeyeen maamadii intay isugu tageen ayay xarig ku xirxireen, waxaana ay dhaheen way waalan tahay, sidii ayaana geelkii lagu qalay, xoolihiina lagu cunay. Hadda maamadaasi weli xaaladaas ayay wajahaysaa. Dunidanna waa xaaladaha noocaan oo kale ah waxa ku gadaaman, oo qof waliba baahidaada iyo sidoo kale baryadaada waxaa laga yaabaa inuusan wax badan ka soo qaadin oo danihiisa u fiirsado. Fariintan waxaa daabacday islamarkaana qortay Malaa'ika Suleymaan. Ku xirnow mar waliba Sharmaarka Media.